gudida abaaraha gobolka Togdheer uu helinaya barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo ayaa sheegay 15 casho biyo dhaamina oo xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelinayso degmada Buuhoodle degmada Oodweyne iyo degmada Burco inuu ka bilaabmi doono maanta waxay arrimahaasi ka hadlayeen waxa hadalladoodii kamid ahaa sida tan maanta waxaanu kala diraynaa gaadiidkii ama booyadihii loogu talagalay gobolka Togdheer degmada Buuhoodle degmada Burco iyo degmada Oodweyne waa gobolkii la isku oran jiray Togdheer waxa bilaabay 15 cisho oo biyo dhaamis ah oo faysaskii maxay tahay gudiga heer qaran ee taakuleynta abaaruhu ay soo qorsheeyeen horeyna waxa uu joogay booyado laba booyadood oo dhaaminayay biyaha iminkana maanta waxaanu kala diraynaa fayskii 15 cisho ee booyadihii dambe la soo kordhayay ee 4 booyadood ahaa ilaahay fadligii maanta ayaanu kala diraynaa hawshuna ay bilaabmaysaa waxaan rajaynayaa shacabweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan reer Togdheer qurbajoogba iyaguna inay ka soo qayb qaataan gobolka waxa haysa abaar runtii aad iyo aad u daran sida aad arkayseen aanu mar walba idin la soo wadaagaynay haday noqoto maraan soo marno iyo haday noqoto mar kale ee maxay teenay dhawaaq ka soo yeeraba aad iyo aad bay dadku u liitaan xoolihii la iibsan maayo abaartu biyo la'aantu aad iyo aad bay runtii u daran tahay baad la'aantuna way ugu biirtay marka waxaan rajaynaynaa insha Allah hawshu inay halka ka sii socon doonto maantana waxaan u ilaaminaynaa 15kii gobolka Togdheer iyo biyo dhaamiska ahaa iyo 1800 qoys oo iyaguna maxay teenay iyaguna fayski koowaad ahaa oo aan degmooyinka iyo tuulooyinka kala duwan aan u qaybinay maantana booyadihii baanu kala diraynaa insha Allah taala waxaan rajaynayaa cid kasto muxsin ah inay ka soo qayb qaadan doonto dawladuna mar walba way u taagan tahay inay 15 cisho iyo wax ka badanba iyadu gacanteeda insha Allah taala mar walba way u taagan tahay inay bulshadeeda la qaybsato dibka taagan iyo abaarta gurmadka iyo waxtarkana aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa anaga afkii gudiga iyo afkii magaranaysa magaalada ku hadlayna iyo magaranaysa dadweynahaba qof kasta oo geysta wax geysta dawlad ha ahaado shacab ha ahaado qof kasta rag iyo dumar cidii wax ka geysataba waxay geysataa bay leeyihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka abaal marinayaa dawladana xil gaar ah saaran maadaama mas'uuliyiintii ay yihiin inay xilka isa si saaraan oo hore u sii ordaan iyagu aad iyo aad baan ugu dhiirigelinaynaa iyagana inta ay soo gudbiyeen ay soo dhiibeenna waa ku hambalyeynaa waxaan leenahay wali faan ole farkama qodnee waa la sugayaa dawladda gacanteedii intani waa faysaskii hore iyo hordhacyadii sida gudoomiyuhu noo sheegay maadaama yahay gobolkii ugu ballaadhnaayo xoolaha nooli ka dhoofi jireen Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa halkan maanta si soo taagnay in maxay tahay laga soo qayb qaato oo sida dawladdu ugu soo damqatay shacabkuna ugu soo daqmaday inta kalena ugu soo damqato sida maxay tahay walaalahay hore u sheegeen waxa weeyaan in loo soo gurmado dadka muslimka ah ee walaalaheena ee abaartu haysato ee biyo dhaamintu haysato ee maanta xoolihiina aan cidiibsanaynin gobolka Togdheer degmooyinkiisa loo kala dirayo maadaama ay baahi weyn loo qabay oo abaari ay jirtay gurmadkii dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u soo fidisay gobolkan ee kaga qayb galisay abaaraha fayskii hore oo laba nooc isugu jira muddo 15 cisho biyo gurmada oo ka bilaabmaya maanta iyo 1800 oo qoys oo raashin noocyadiisa kala duwan loo qaybinayo waa Saciid Cali Cusmaan Xalays telefishinka caalamiga ee Gobonimo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer